بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal horta waxaan soo sheergareeyey oo dad badan u sheergareeyey codad nin saaxiibkay oo iminka etoobiya ku nool kanada nala joogi jiray oo ilaa muddo dheera naqaano oo si fiican u hadlay oo dadkeena la talinaya horta laakiin waxaan u sheegayaa dadkeena horta ma aha horta shaksi reerka ismaaciil cumar geelow yahay dad badan horta inay xagga ka bogsadaan weeyaan ma aha waa ciisaha kale weliba waa curadadii dee ani waan u boga horta siduu hadlayo muddana maan walhadal maanta waliba baa walhadlayno telefoon ba ii soo diray telefoonkayga qofaa soo siiyey war maxaad la aamusteen buu yihi meeshani maaragtay la doonay in loo duqeeyo iyo maaragtay arrimo caykaasu igala hadlayay isagu arrimaha horta etoobiya ciisaha ayuu aada iyo aada ugu jiraa waa nin maaragtay qeyb libaax ka qaata horta waxa weeye anagu ma aamusin weli waan hadalaa dee hadduu hadal wax tarayo ilaa 10 sano iyo dheeraadna waan hadlaynaa ilaa 10 sano waan odhan karaa oo cid ay hadalkaygu ka baqan tahay dee ma jirto dee nin hurdo la toosin karaa nin iska helheysa lama toosin karo laakiin waxaan ka idhi iminkana aan iniga inila qeybtamaya waxa weeye horta dad waxaa la garab yaacaa siyaasadda waxay ka dhigan tahay fahmi karaa ayaa wax lagu darsadaa waxaa la qeybtamaa shaksiyaad markay election soo socoto loo tuurayo kubadda ila cumar geeliya xuluufadiisu aada ba u fahmeen shacabka reer jabuuti iyo inta weliba macaaradka isku sheegaysa iyagiina waxay ka qabsatay naga tag dhulkaaga isaga noqo adiyo tolkaa kuma rabno waa rag idin waaweyn oo 60 jira iyo dheeraadaba dadkii oo dhan baa nala yaabay rag idin oo xidin oo waaweyn oo xitaa ooyaya intay facebooka soo fariistaan live ooyina waad marro dilaacaysaa hablo sidaa hablo dee waxaa lagu yaqaanaan caytabin oo maaragtay aflaga dadkaan u geyn oo dee at least dee malaha waxaan u malaynayaa rag bay waayeen waayo raggu markay dee ay talo la yimaadeen yaa dee dumarkana waxa la weydiin jiray oo ciisaa xitaa islaamaba xeerka kusoo dartay baa layidhaha iminka ma sii galgalayo erey lagu wareeray iyo caqli oo ruux walba ilaahay caqli buu siiyey ruux dumar aada u caqli badan baa jira oo ragguba ka maarsanayn imikadana kama maarmi karno laakiin rag aanan garanaynin war hadalkaagu waxaad leedahay bilow dhibaato keen war nin weyn baa tae maxaad la hortegi dadka ma soo dareera soo baxa waxaa umaad odhanaya ee wax brograam oo siyaasadeed oo ninka lagaga badiyo oo adduunyada lagu soo xidhxidho oo shacabkaaga lagu soo jiito ma jirtaa waa maya haddaan haynoon aan garanayna dad inta garanaysaan ula tegiyo la tashani ileen sacabada adun baa lagu dhargaabay karaa soomaalidu tiina ma rabaana qofka kale iyagu ay sidaa ay iyagu u socdaan aan u soconin iyaga xaggooga maaragtay walaalkood maahee waa cadowgayga buu leeyahay amba kale hadduu la qabiil yahay ciisoo dhan ma sheegaya inta meelahan macaarid male ka yaacaysaa sheegaya amba waxay leeyihiin qabiilka ismaaciil cumar buu yuu yahayo dee ma aaminayo waa kuwa cidlana jooga marka ninkaasi wuxuu ku celceliyey inuu i ogolaanayo mooyo kale hadduu isagoo magaciisa u sheegin ma jecla inuu magaciisa sheego
wuxuu ku celceliyey war dad kale ay nagu dhex jira oo ini baabi'inaya doonayna waxaas iyaguma qorayaan waayo oday baa odhan jiray alla doqon kuu caruuray wax ka xanuun kulul hadduu cidlo kugu helo markaad doqonnimaad moodaa inay ku yar jirto shakhsiyaadkaas gabadh baa cisho dhaweyta nin baa ii soo dirtay odaydilo weyn oo dhaqaano waxay tiri bal arag bay tiri bal sacan daawo bay tiri waa gabadh ciisaa walaalkay maxaa raggeena ku dhacay bay tiri ninkaas wuxuu leeyahy naga tag ina cumar waa ku dhacday iskaga tag meesha ora soco meel baas baad lagaga timaadeen ora dhulkaad lagaga timaadeen ku noqo buu leeyahay waan eegay wax xigmadu ninkaasi ku hadlayaa ma jirto bar ha la isweydiiyo ma nin idinoo madaxweyne ah oo billions of dollars daldalanaya oo magacaa leh oo waxaasoo madaxa adduunyada sa u wareegaya ay islaan maaragtay reer baryana ay wixii ka daatoo dhanba guranayso markuu jaabka gacanta geliyo ila jaabkii de xoolihii ummadoo dhan baa ka buxday wax ka daantana ay guranayso intuu soo jeedsaday wala gura ay leedahay tolkeed u geynayso bal sidaa dhib yar ubu kaaga tegayaa bal caqligaabaa la yaaba weliba naga teg oo dhig oo noo dhaaf meesha hadal jilicsana ah qadaafi inantiisa oo masar joogtay yaa cisho dhaweyta la waraysto waxay tiri aabbahay bay tiri saasaa loo garab yaaci jiray bay tiri maalintuu dhintaa dad noogu dambeysay tiri mayna fahmayn dadka saa loo qofka markaa shaksigaas loo daba raaca loo daba cararayo magac leh qaran magaciisa sita xoolihii dalkoo dhan wata masiiro dhib yar baad u haysataa inuu kaaga tegayo ma kala jeclo ilaa uu dalku kala daadanayo baabaayo intayna qurbaha joogtana haddaan meelaha ka soo hadalno dee kuwo kalaa lagu samaystay weli ku adiga weliba kula laftaada iyaa meesha lagu soo fadhiisanoo gaaja disho caylo odhan rag qololada caddaaday yaa xagga lasoo fadhiisinaya oo waa goorba ugu dambeysha ay qadeeyaan qaarkood maanta waxay leeyiin maantuu markab kugu soo caariday hebel u jawaab baa laga leeya waa kuwa caytamaya marka intoo waxa laga tago biyaa la waayana caqli lala yimaado markaa gabadh baa ila hadlayso mid yurubtaa joogo meelaha isaguna waxa weeye yidhaahda intuu iisoo garaacay bu iga yidhi bay tiri maaragtay ha dowlad baan dibadda ka samaynaynaayo xisbiyadii macaaridka yaa samaynaya waxaa keenay bay tiri war fikraddan rag baa leh maxamed cawaaliyo nabadiidiyo fikradda keenay dee rag buu ilaahay liga dhigay miyaad la tashatiin oo dad wala fadhiisatiin oo tashatiin oo hawshan aad la wadiina maya de anagu xisbiyo macaaridaan nahay iyagu xisbi ma leh bal caqligaa daawada waa niman maaragtay saaqiday oo waagii jabuuti loodhan jiray redublaho waa ilaa 1990 wixii ka dambeeyey 2013 waxa haddana 2003 waxa la cararay legislativeka waan xasuustaa weliba odayga axmed diiniya waa loo yeedho cararaya allah yarxame waa niman ballan ku qaada inay cid kale soo bixin fikrad kale inay soo bixin fikraddii lala yimaadaba qaata oo hor fadhiista dadka hor joogsada waa si ay dad kale oo fikrad kala wada oo wadanaya siday shacabkaba waxba ula tegin mar walba xisbi aanan jirin aanan fikrad lahayn oo waxba aan curin waxba dadka ku soo kordhin waxaan ahayn aabihiibuu ka dha adeerkiibuu ka dhaxlay hadda ka sidaana isaga qudhiisa adeerkiibuu ka dhaxlay xisbiga uu sheegay niman maaragtay siyaasadda maaragtay ku saaqiday oo mar walba 20 sano u dadka hor jooga oo haddaad tiraahdid war de fikrad cusub baa loo baahan yahay
labaatan sano laguma celceliyo wuxuu hadda intii hore 99 ku horreysay waa lagu saamaxnayba 99 wixii ku horreysay waa lagu saamaxnay waxaan nidhi rekorka maxkamadaha markaad maxkamadaha wadanadani dhibaatooyin badan misdemeanor baa la yidhaha maaragtay dhibaato crime culus aan ahayn waa lagu dhaafaa waxaan nidhi bal u dhaafay intaasi barbarad bay ahayd siyaasadde balaa kula xisaabtamina intaa 99 wixii ka dambe kula xisaabtama maxay ku soo kordhiyeen ciyaalkii waagaa dhashay waa 20 jiro waa wallahi billahi been ma sheegay waxay yiraahdeen dhalinyartaasi dhalinyar wala dhowr 20 jira rag iyo dumar bale dhalinyar waragani ma sidan bay ahaayeen walaa ku sheekh matalaya ila ragan way wala matalaya taytarada ay sitaan way wala matalayaan way matalayaan waxaan u leeyahay qof sidii sheekhnimo u socda sheekh maarata xasada sheekh qabiil nacayb ku jiro sheekh xumaan wada anoo magacdooda waa maaragtay taataabanaynin ay qasab tahay ninka idil cabdiraxmaan bashiir la yidhaahdo u fiirsada markuu siyaasiyiin macaarida uu tirinayo niman qabiilkiisa oo tolkiya iyo laba iyo dhowr nin oo mataqaanaa ciisaha kale oo isaga isku dhow yihiin isku fikrad yihiin unbuu tiriyaa wax nin mamaasana kuma jiro macaarida iftin ilaa imisuu macaarid yahay maxamed muuse tuurto ilaa imisuu macaarid yahay dad badan baa xitaa aniga inay bay igu darinba aniga wayba iisalugsan yihiin oo ninkaasi maaragtay durbaanka nooma tuba ma uuna dhaliilaabayn anu dhaliilka hore ugu talagalay oo qofka waa sax weeye waan jeclahay anu qofka bini aadamka hadduu i dhaliilo cayda iyo dhaliishu waa kala laba af soomaaliga qofka garanaya dhaliishu qofku wuxuu kuu dhaliilaa in haddii ay wax jiraan ay wax kaa qaldan yihiin amba wax iga qaldan yihiin inuu qofku ku saxo iyagu laakiin ha i dhaliilin ay ammaan anna dee kuma ficli ammaanta malaha dad baa ku fiican waayo qof dadka shakhsiyaadka aanan isku kalsooneyn ee dadnimadoodu iyo kartidoodu aanan lahayn si wax lagugu ogolaado dadkaa dabagalo durbaankoota adigana maaragtay kamid buu yahay lagu yidhaahdo ilaameyi anigu aan waxaan aaminsanahay ama meel ka maqno ama ka muuqno marka waxaa ninka walaalkaya codadkaas soo duubay anu soo qaatay ragga wax fiican oo xaq u sheegay laakiin caqli mee waxa weeye iyagu waxaan kusoo gabagabeynaya iyagu siyaasadooda cadka anigu haddaan cuni waayo ka ciidee oo waa aargoose isma leh waa ninkan haddeed waa da hadday caqli fikrad ay noqon weydo inaan dadkaa kala dirno oo dadkaa isku dirno damiska siiyaan bal hase sii diyaarino gouvernement de transition oo xisbi anu waxaan garanayaa xisbigaasi US berigii US-ba way ku waasheen oo meelba kumay gaadhin 2012 baa war guddida badbaadada qaranka la sameeyo waayo dadkeena waa inaad aad kolbaad xasuusisaa because dee maanta Facebook waa lagu badan yahay waaga waaba ku yarayn oo dadku way xasuusan jireen wax markaad soo dhigtay 10 sano kadib maanta waxaad adeer aad ku hadashid ma xasuusanay because laba kulo kala ka dambeeyay ayaa ka dambeeyay kaana horeeyay dad badanna xikmadda ma kala saaran karaanba war guddida badbaadada qaranka sameeyna ma yidhi si dawlad dibad jooga aan u samaysano adduunyadoo dhanna way ka dhacday Israa'iil baa lagu aasaasay France baa markuu Hitler qabsaday de Gaulle baa sameeyay waayo dalka burburiya ila dal ciidan kale oo dibadda ay haystaan maaha waa dawlad lixaad la haysata reer galbeedkuna way garanayaan waxba kaagama qaadayaan reer galbeedku codkaaga adoo la soo baxa maayn
sidii dowladda xasan guuleedyaduba ay laba dhagax dhexdooda ay kala soo baxeen xornimadan la ogolayn saan ugala soo bixi lahayn fikradeedii waan haynaa laakiin in hadduu yidhahdo fikraddaa ka qaato la carar oo magac kale u bixiya wallaahi ayna shaqaynayn sidii kuwii ilaa u s anta ay jarka ka tuureen ee qaarkood gabood ku dhintay cidba ma hadal hayso qaarkood ku shaqo beelay waan ku dheeraadaan u malayne waan ka baxayaaye waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalahayow raggaasi waxa inii maleegayaa laba goor iska ilaaliya sidaa aad arkaysiin iminka inuu cumar gela ku sameeyin buu ku samaynaya qaar buu kusoo kicinaya qaar kabaa soo caayaya ciidanku maadaama u hayo mishaaradii amarka qaadanayaan iyagaa dadkii hor joogsanay khalaas way dhamaatay iyaguna ubadkoogii iyo dumarkoogii iyo wixii oo dhama dibadday joogaan wax ka baaba-ayaa ma jirto ciyaalkoogaa ugu dhoway ka naxayaana ma kala jecla dadka kale asalaamu calaykum